السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada xubnaheeni qisooyinka halkan waxaan idinku haynaa qiso aad u la yaab badan taasi oo ku salaysan nolosha aadamaha ku nool gabi ahaanba koonkan aynu ku noolahay waxay qisadani si fiican u dhexmartay Axmed iyo Maryam haddaba qisadu waxay u dhigan tahay sida tan muddo 6 sano ah ayaa ka soo wareegtay markii ay iskuursadeen Axmed iyo Maryam waxa caruur iskuma aysan dhalin habeenada ka mid ah iyagoo is agjiifa ayay sheekaysteen waxay isweydiiyeen iyagoo cod hoose ku hadlaya sababta ay ilmuhu leeyihiin sheekadii ayaa la sii dheeraatay waxayna isku bedeshay buuq ugu dambeyn waxa lagu heshiiyay inay dhakhtar bari u tagaan si ay u ogaadaan dhibka dhanka uu ka jiro iyagoo qofna u sheegin ayay subaxii dhakhtarkii aadeen baaritaanka kadib Axmed ayaa wuxuu soo galay dhakhtarka si uu natiijada baaritaanka ugu sheego Maryam dhakhtarkii wuxuu Axmed tusay natiijada baaritaanka taasi oo ahayd inuu Axmed caafimaad ahaan fiican yahay balse ay Maryam qabto xanuun isla markaana aysan suurtagal ahayn in ay uruqaado sida uu dhakhtarku sheegay wuxuuna intaa ku daray dhakhtarku in aan rajo laga qabin in ay bogsato xanuunkaas Axmed markii uu natiijada arkay uu murugooday saas oo ay tahay haddana waxa uu ku yiri Alla subhanahu wa ta'ala lagama quusto dhibcooyinkiisa dhakhtarkii ayuu sheegay inuu xaaskiisu u yeedhayso si ay gudaha u soo gasho laakiin uu ka codsaday inuu dhakhtarku u sheego Maryam in ay wax xanuun ah qabin dibkana uu yahay dhankiisa dhakhtarkii arintan inuu sameeyo waa uu ka diiday Axmedna waxa uu ku adkaystay ilaa ugu dambeyn uu dhakhtarkii ka ogolaaday waxa loo gaadhay Maryam markii ay gudaha soo gashay waxa loo sheegay in uu xanuun qabo Axmed kaasi oo aan rajo lahayn inuu ka bogsado isla mar ahaantaana aan suurtagal ahayn inay ilmo dhalaan balse ayadu fiican tahay Axmed markii uu warka dhakhtarka maqlay ayuu aamusay wuxuuna fiiriyay Maryam isagoo oo wajigiisa ka muuqato sida qof quustay oo kale lamaanihii waxay ku laabteen gurigoodii arintii ka soo baxday baaritaanka labadooda waa si tartiib ah ugu fiiday deriskoodii qaraabadoodii iyo saaxiibadoodii noloshoodii ayay sii wateen iyagoo oo dulqaadanaya balse markii 5 sano ay ka soo wareegtay xilligii baaritaanka ay sameynayeen Maryam waa ay dulqaadan weyday waxa ay u timid Axmed si ay ugu sheegto go'aankeeda waxayna ku tiri sida tan Axmed aniga iyo adiga waxaan isqabnaa muddo 12 sanadood ah ilaa iyo intaasna wax caruur ah maynan helin aniga weligay kuma soo hadal qaadin furiin balse qoyskayga iyo saaxiibadayba way igula taliyeen in badan inaan furiin ku weydiisto ana kama yeelin sidaas anigoo og inaad madhalaystahay laakiin markan waxay u muuqataa intaas in ka badan inaan samri karin fadlan waxaan ka codsanayaa ayay tiri inaad iska kayfurto si aan u guursado nin kale oo aan u helo ubad ay indhahaygu ku dogsadaan Axmed markii uu maqlay hadalka Maryam kuma uusan farxin wuxuu ku yiri in arintan ay amar alla tahay miyaanad ogeyn isagoo inta uu raaciyay inay muddo kale siiso laga yaabaa inaynu wax isbedela helno ayaa uu yiri Axmed Maryam way ka aqbashay iyada oo u sheegtay inay siinayso muddo 1 sano ah oo kaliya haddii sanadkaas ay wax isbedel waayaan ay kala tagayaan sidaas ayaa lagu heshiiyay maalmo yar kadib Maryam way xanuunsatay isbitaalka ayaa la seexiyay xaaladeediina aad ayay u liidatay Maryam markii ay ogaatay natiijada waxay la hadashay Axmed iyadoo dhahaysa arintan oo dhali waxay igu dhacaysaa darta maxaad mar hore iska kayfuri weyday anigu waxaan rabaa inaan caruur dhalo waxaan rabaa inaan ilmahayga arko haddii aad hadda sidan gablanka ah ku dhinto ka waran ayaa ay ku tiri Axmed waxa uu yiri anigu waxaan u baxayaa safar dibadda ah ayaan u socdaa waan ka xumahay dhibka ku haysata waxaan rajaynayaa inaad dhawaan bogsato
haa, orod iska bax ayay ku tidhi iyada oo xanaaqsan. waan baxayaa, laakiin waxaan u baxayaa inaad raadiyo qofkii keli kugu deeqi lahaa adiga, ayaa uu yidhi Axmed. maalin ka hor maalintii qalliinka ayaa waxaa Maryam u yimid dhakhtarkii wuxuuna u sheegay in la helay kelidii loo gelin lahaa. Maryam waxay soo xasuusatay ninkeedii iyadoo isweydiisay, waa nin noocee ah, adigoo berrito qalliin galaya ayuu iska maqan yahay. Si kastaba ha ahaatee, qalliinkii waa lagu guulaystay. Usbuuc kadib waxaa soo laabtay Axmed muddo 11 bilood ah. qalliinkii kadib Maryam way umushay. waxa ay iyada iyo Axmed heleen unugii ugu horreeyay, aad ayayna u farxeen. noloshoodiina way isbedeshay. maalin maalmaha ka mid ah, Axmed guriga ku ilaaway buug yar oo xasuus qor ahaa, kaasi oo ay ku qornayd sir uu muddo qarinayay. buugga wuxuu kaga dul tegay miiskii ku quraacanayay. Maryam ayaa aragtay buuggii, way furtay si ay u eegto waxa ku qoran buuggan. waxay ku dhowaatay inay suuxdo markii ay aragtay sirta ku qoran buugga ee ku saabsan iyada iyo saygeeda. aad ayay u naxday. isla markiiba waxay wacday Axmed. markii uu yimid way ilmaysay, wayna raali gelisay. arrintan kadib, Maryam muddo 3 bilood ah ma aysan eegi karin Axmed wejigiisa, xishood iyo yaxyax dartiis. qofka kelida ugu deeqayna qof kale ma ahayn ee waa Axmed. dhakhtarkii ayuu ku sir qarsaday ilaa iyo intii uu ka bogsanayay. haddaba nuxurka ku jira waxa ay tahay, sheekadan mug iyo miisaan kale. noqo mid lamaanihiisa ka taxadira mar kasta iyo goor kasta. haddaba haddii aanad channelkan hore ula socon jirin ama aad ku cusub tahay, subscribe, like saar, share gare. waxaa idila socodsiinayay anigoo ah Yaala Talyaani, dhanka isku soo dabaridka soo qaban qaabinta Cabdicasiis Mataane. intaynu ku kulmi doono sheekadan la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.